Somaliland xag kasta oo adeeg xaaladdu faraha ayay ka sii baxaysaa. Cidhif ilaa cidhifna waa la isla wada oogsaday, bulshada qaarkeedna waxay yaaban tahay hore iyo dib meel loo socdo. Somaliland wasaaradda arrimaha guduhu waxay taag iyo maara u leedahay colaadda cirif weyn. Wasaaradda arrimaha dibadda iyada waa la baafinayaa meel ay jaan iyo cidhib dhigtay, oo waxaaba u baxaysa afkiiba juuqda gabay. wasaaradda caafimaadka iyadu waxay suuqyada Hargeysa lacag qaaliya ka siinaysaa bulshada agabkii laga hortagi jiray coronavirus ee dawladuhu ku caawiyeen Somaliland. dadka qaarkood sidoo wadku ugu yimi ayayna beesha caalamka ugu sheegayeen inay u dhinteen coronavirus. bartamaha magaalada Hargeysa oo ku yaala dhakhtarkii weynaa ayay ku qaybinayaan xanuunkii coronavirus. ma jirto meel ay u diyaariyeen dadka u soo ritay xanuunkaasi. wasaaradda beeruhu shacabkii xoogooda maali jiray ee beeraleyda haysta markaana ay ku habsatay mushkiladda ay yahay walaalahooda Soomaaliya caawiyeenna beenayayba shacabka ugu sii sheekeynayeen waxay leeyihiin anaga ayaa idinka buufinayna noomana imanaya diyaarad Soomaaliya soo dirtay. wasaaraddu inay gudato shaqadeeda waxay ka jeceshahay inay Soomaaliya u jawaabto la soco maha wasaaraddu wafaafintay waabatii beeraha. shacabku shanta ay dhabanada saareen. wasaaradda diinta iyo qaaftu iyaduna waxay albaabada isugu dhufatay masaajidada bishii Ramadaan cibaadadu waxay gashay qirinqiir. Somaliland qunsuliyadaha ay ku lahayd Kenya iyo Imaaraadka Carabta iyana waa baxray yihiin haadka ayaa ka duulaya. hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay iyana shaqada ka calinaysaa lana daba joogtaa istiigad cidii tirada xageenu u soconnaa. haween wada hadlay dhaliilana isu mariyay saxaafadda oo la yiri sideebaad ula hadashay heblaayo shaqadiina ku weyday. abwaana gabi oo la yiri sideebaad muuse ugu gabaydeen iyana mushaharkii laga goostay. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadana waa la baafinayaa meel ay ku wardambeysay. meheradaha ganacsiga baabuurta u kala goosto dalka iyana waxa la yiri ma socon kartaan 2 maalmood. la soco dadka Soomaaliland ku nool noloshoodu waxay ku xidhan tahay waxay maalintii soo shaqaystaan oo qaadama dhirgaan. farikamo qodnay madaxweynaha laftiisu wuxuu taliyaha ciidanka weydiinayaa hurraha riimayna bahalkiiba wuxuu raadinayaa cid ay isku reer yihiin. gaashaalo sare Ahmed Hurre Hari mana bahalkiiba Hurre Hari waxaa soo hadlaya hay'ado shisheeye oo dalbanaya in la kala fududeeyo dulminayaasha jeelasha Hargeysa iyo Mandera. hay'adaha xaquuqul insaanka u dooda waxay ku dhow yihiin albaabada isugu dhuftaan xafiisyada ay ku lahaayeen Somaliland. baaqyada dhalinyarada ee shacabka Somaliland waxay ku sii dhow yihiin inay isu bedelaan kacdoon shacab. guud ahaanba Somaliland waxay gashay 4 tababood laga saar oo dhinaca adeegtaba wuxuu ka daran yahay kii kale.